dagaal aad u xoogan ayaa waxa uu ka socdaa magaalada Kharkiv ee dalka Ukraine halkaas oo ay isku hayaan ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine. Magaaladan oo ah caasimadda labaad ee Ukraine ayaa saacado ka hor waxaa gudaha u galay dabaabaadka ciidamada Ruushka. Hase ahaatee waxa ay la kulmayaan iska caabin aad u daran. Muuqaalo la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya iyadoo ciidamada Ruushka ay galayaan Kharkiv, sidoo kalena waxaa la maqlayaa daryanka madaafiicda culus. Magaaladan oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaaso 1.5 milyan oo qof ayaa waxa ay 30 kilomitir u jirtaa xuduudka, halka 80 kilomitirna ay u jirto magaalada lagu magacaabo Belgorod ee dalka Ruushka. Ciidamada Ukraine ayaa wadooyinka magaalada Kharkiv kula dagaalamaya Ruushka sida ay sheegeen saraakiisha deegaanka. Ruushka ayaa isku dayaya inuu gacanta ku dhigo magaalooyinka waaweyn ee dalka Ukraine. Hase ahaatee waxaa hortaagan awoodda ciidamada Ukraine oo si aan laga filayn noqotay. Dhinaca kalena madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa goor dhow ka hadlay telefishinka dalkiisa, wuxuuna ugu mahadceliyay ciidamada gaarka ah ee Ruushka sida ay howlgallada u wadaan, isaga oo tilmaamay inay yihiin kuwa geesiyaal ah oo gudanaya waajibaadkooda ciidan. Muuqaal laga sii daayay telefishinka oo sidoo kale lagu daabacay website-ka Kremlin-ka, Putin ayaa yiri: adeegga wanaagsan ee aad u haysaan dadkiina iyo sida aad ugu adeegaysaan dalkiina waa mid magac iyo sharaf inoo soo jiidaysa. Geesta kalena xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka UK waxa ay sheegtay in dagaalka Ruushka ku qaaday Ukraine yahay bilowga dhamaadka Putin. Weerarka Ruushka ku qaaday Ukraine wuxuu noqon karaa bilowga dhamaadka madaxweyne Vladimir Putin. Xogayaha arrimaha dibadda ee UK Liz Truss ayaa sidaasi tiri iyada oo la hadlaysay barnaamijka Trevor Phillips ee Sky News. Truss waxa ay tiri: waxaan aragnaa iska caabin xoog leh oo geesinimo leh oo ay sameynayaan ciidamada geesiyaasha Ukraine. UK waxay sii wadi doontaa inay siiso hub iyo taageero dhaqaale. Waxay sidoo kale sheegtay inay aaminsan tahay in Putin uu sameynayo qalad istiraatiijiyadeed marka loo eego dhaawaca cunaqabateynta reer galbeedka ay u geysan doonto dhaqaalaha Ruushka. Waxa ay tilmaantay in dagaalkan uu sii socon karo muddo sanado ah. Waxaan ku baaqayaa in khilaafkani uu noqdo mid aanu dhiig badan ku daadan, ayay tiri xogayaha arrimaha dibadda ee UK. Mar wax laga weydiiyay cunaqabateynta UK, Truss waxa ay sheegtay in uu jiro liis ballaaran oo ku aadan cunaqabateynta Ruushka ee UK ku soo rogayso. Dagaalka waxaa ku bixi doona qarash dhaqaale. Dadka Britishku way fahmi doonaan qiimaha aan ku bixin lahayn haddii aynan hadda ka hor istaagin Putin, ayay tiri. Dhanka kalena madaxweynaha Ukraine ayaa isna goor dhow mar uu ka soo muuqday TV-ga qaranka dalkiisa waxa uu ka hadlay arrimo aad u badan. Ugu horeyn wuxuu madaxweynaha ku baaqay in Ruushka laga xayoobiyo xuquuqda codbixinta ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, isagoo intaasi ku daray in faldambiyeedka Ruushka ee Ukraine ay qarka u saaran yihiin xasuuq. Ruushka waa mid ka mid ah 5 waddan oo tan iyo 1945 xubin joogto ka ahaa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, taasoo siinaysa xuquuqda diidmada qayaxan ee wax kasta. Jimcihii Ruushka ayaa adeegsaday awoodiisa diidmada qayaxan si uu u hor istaago qaraarka Golaha Ammaanka ee lagu cambaareynayo gardarada Moscow oo uu kaga dalbanayo in ay ka baxdo Ukraine. Golaha oo la aasaasay dagaalkii labaad ee adduunka kadib si looga fogaado isku dhacyada mustaqbalka iyo horumarinta nabadda, wuxuu leeyahay 4 xubnood oo kale oo joogto ah: US, UK, France iyo Shiinaha. Madaxweynaha Ukraine ayaa sidoo kale soo hadal qaaday arrin ku saabsan wadahadallo lala galo Ruushka kadib markii Ruushka uu sheegay in wafdi u dirayo Belarus kuwaasi oo doonaya inay wadahadal la yeeshaan dowladda Ukraine. Madaxweynaha Ukraine waxa uu ku gacan seeray dalabkaasi. Waxa uu sheegay wadahadal haddii lagu yeelan lahaa Minsk ay suurtagal noqon lahayd haddii Ruushka aanu waddankaasi uga soo duulin dalkiisa waa Belarus. Waxa uu yiri: haddii aysan jiri lahayn fal gardarro ah oo ka yimid dhulkaaga, waxaan ku wada hadli karnay Minsk. Magaalooyin kalena waa loo isticmaali karaa goobta wadahadalka. Dabcan waxaan rabnaa nabad, waxaan rabnaa inaan kulanno, waxaan rabnaa in dagaalka la joojiyo. Warsaw, Bratislava, Budapest, Istanbul, Baku, waxaan u bandhignay Ruushka. Magaalo kasta oo kale ayaa nagu habboon inaan ku wada hadalno. Sidoo kale waddanna laga soo weeraray ma ahan mid aan yeelayno in aan wadahadal ku galno. Tani waa habka kaliya ee wadaxaajoodka ku noqon karo mid daacad ah oo dhab ahaantii soo afjari kara dagaalka haddii meel kale lagu ballamo, ayuu yiri madaxweynaha waddanka Ukraine. Sidoo kale madaxweynaha Ukraine ayaa geesta kale ajaanibta ku nool dalkiisa waxa uu ku casuumay inay ka qayb galaan dagaalka ka dhanka ah Ruushka.
wuxuuna sheegay in taasi ay micno weyn u yeelan doonto. Tani waxay noqon doontaa caddeynta muhiimka ah ee muujinaysa taageerada aad u haysaan waddankeena Ukraine, ayuu yidhi madaxweyne Volodymyr, isaga oo la hadlayay dadka wadamada kale u dhashay ee ka barbar dagaalamaya ciidanka Ukraine. Waxa uu sheegay in guutada ajaanibta loogu magacdari doono guutada caalamiga ah, wuxuuna tilmaamay in haddii ay dalabkiisa aqbalaan ajaanibta ay uga dhignaan doonto inay heleen taageero dhan walba ah. Dhinaca kalena, dalalka Finland iyo Ireland ayaa iyaguna ku dhawaaqay inay hawadooda ka xidhi doonaan diyaaradaha Ruushka. Finland waxa ay Ruushka la wadaagtaa soohodin dhirarkeedu yahay 1,300 oo kilomitir, taas oo la micno ah in la xidhi doono marinka ugu muhiimsan dhanka galbeed ee ka imaanaya Ruushka. Wadamada kale sida Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Germany, Poland iyo UK ayaa iyagana hore u qaatay go'aan midkan la mid ah. Moscow ayaa dhankeeda sidoo kale mamnuucday diyaaradaha ka imaanaya dalal dhowra in ay dul maraan dhulkeeda. Haddii aan u soo laabanno dhanka caasimadda Ukraine, waxa ayana halkaasi ka soconaya dagaalka ay ciidamada Ruushka kula jiraan kuwa Ukraine, walow la sheegayo in awood ahaan dib loo yara riixay ciidamada Ruushka. Madaafiic aad u culus ayaa ku dhacaysa Kiev xilligan oo aan barnaamijka idiin soo tabinayno, waxaana lagu soo waramayaa in lala beegsanayo xarumaha dowladda. Ruushka ayaa doonaya inay awood ku qabsadaan guud ahaan Ukraine, hase ahaatee waxaysan filayn ayay halkaasi kala kulmeen maadaama shacabkii Ukraine ay hubkooda qaateen. Sidoo kale wararka soo baxaya waxay sheegayaan in shacabka isaga cararay Kiev Khamiistii uu dagaalka bilowday ay dib u soo noqdeen markii ay caruurtooda meelo ammaan ah ku hubsadeen, kuwaas oo qaatay hubka si ay dalkooda u difaacaan. Shacabka Ukraine ayaa dhanka kale waxaa loo furay tababaro degdeg ah oo ku saabsan in qaraxyo ay sameeyaan si aanay ciidooda ugu ogolaan askarta Ruushka. Reer galbeedkii dagaalka geliyay dowladda Ukraine ayaa markii ay arkeen awoodda shacabka Ukraine waxa ay bilaabeen in hub badan u soo dhiibaan dowladda, sidoo kalena qaarkood ay sheegaan in ay ka fikirayaan tallaabooyin waaweyn oo lagu gacansiin karo dowladdan. Dadka wax falanqeeya waxa ay sheegayaan in Mareykanka uu mas'uul ka ahaa duulaankan lagu qaaday Ukraine maadaama isaga uu ku soo jeediyay indhaha Ruushka, sidoo kalena markii xaaladda xumaatay sheegay in hal askari xitaa aanu dalkaasi u dirin, taas oo muujisay in Mareykanka qudhiisu uu doonaya in cagta la mariyo Ukraine isaga oo danihiisa kale eeganaya. Sidoo kale, go'aankii Mareykanka ee uu soo jeediyay madaxweynaha waddanka Ukraine ee ahaa in uu ka cararo dalkiisa ayaa reer Ukraine shaki aad u weyn gelisay. Daawada aragtidaada fadlan qaybta hoose kommentiga inoogu reeb. Waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalkan noo sii share gareyso, sidoo kalena nagu soo biro channelka subscribe inoo saar. Intaynu barnaamijkan mid ka xigay ku kulmi doono nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.